kusoo dhawaada shabakada Kacab Media haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay daawade fadlan subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalka cusub kusoo dhawaada muuqaal cusub Ile Cabdullaahi Nuuna Ile Yare fanaanka caanka ayaa uurka u inkiray fanaanada Iqra Yare xog xasaasi ah ayaan ku dul istaagi doonaa warbixintan waxa saacadii ugu dambeeyay taagnaa qalaaso ka dhax taagnaa labada fanaan ee fanka ku saaxiibay Ile Yare iyo sidoo kale fanaanada Iqra Yare kadib markii Ile Yare uu uur qaadsiiyay fanaanada Iqra Yare oo saaxiib dhow ay ahaayeen fanaanada Iqra Yare iyo sidoo kale Ile waxa ka dhaxeeyay xiriir jacayl oo qarshoodi ah iyadoo la arkayay iyagoo inta badan isa soo garaya sawirro kuwaas oo muujinaya sida dad isqaba oo kale markii la weydiiyay fanaanada Iqra Yare xiriirka jacayl ee kala dhaxeeya fanaanka Ile Cabdullaahi Nuuna Ile Yare waxay ku jawaabtay Ile waa walaalkii oo kale mana jiraan wax xiriir oo xilliga naga dhaxeeya waxay arintaas socotaba maalmaha kamid ah ayaa Iqra Yare iyo sidoo kale seegeeda waxa ay tageen isbitaalka Alqaan oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaas oo ay leeyihiin dhaqaatiir ka soo jeeda dalka Hindiya waxayna halkaas u tageen inay iska soo baaraan cudurka dunida aafeeyay ee coronavirus baaritaan kadib waxay dhaqaatiirtu u sheegeen Iqra Yare iyo seegeeda in gabi ahaanba aysan qabin cudurkaasi laakiin maxaa dhacay seega Iqra Yare qaba ayaa dhaqaatiirtu waxa ka codsaday in labadoodaba laga cabiro dhiiga markii la cabiray kadib waxa soo baxay uur 2 bilood oo wali aan cusubin kadib markii xaafadda ay dib ugu laabteen Iqra Yare ayaa weydiiyay seegeeda cidda ku xaday uurkan fanaanada Iqra Yare oo u cabsanaysa marwanimadeeda ayaa fashay arintan waxayna sheegtay in Ile Yare uu qaatiyay uurka dabadeedna uu ku inkiray Ile Yare ayaa xiriir la sameeyay waxaan loo sheegay in uurkaas uu leeyahay isagoo gabi ahaan difiray in uu uuriyay fanaanada Iqra Yare mudooyinkii dambe ayaa soo kordhayay arrimahan fashilka fanaaniinta iyadoona dhawaan ay ahayd markii fanaanka Xuseen Shire Jaamac ciyaar jecel uu uur ku inkiray fanaanada Farxi Fiska